السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشركي ودن بيي عشركي كوري وحوها كان هدين هريالا وحنا أي عشر كاسي وبحي قاب كان إي بي تي ثي تشي حي خي دي ذي ري ذي سي شي waxyaabaha ka dhigay e iyo b iyo t iyo waxaas oo dhanna waxaanu ku tilmaamnay in uu yahay waxa yar ee ka hooseeya halkaa. xaraf walbo kaa wata waxaa lagu dhawaaqayaa, waxaa la raacsiinayaa i baa la raacsiinayaa. tusaale ahaan tan markay saas tahay waxaa lagu dhawaaqaa haddaad tiri sa waa kaa khaldan tahay, haddaad tiri si waa kaa khaldan tahay. xarafkaas waxaa lagu dhawaaqaa waa lagu dhawaaqaa, dhawaaqiisu waa nooca. marka uu yeesho taas ayaa sa la dhahayaa. haddii aanu taaba yeelan oo uu taa yeeshana si baa la dhahayaa. inta kale ee aan waxba lahayn waxaa loo yaqaanaa baa loo yaqaanaa. marka adoo leh baad waxaa ku daraysaa i baad ku daraysaa, waxay isla noqonaysaa si i waxa ka dambe ka ah. haddii aad carabkaaga dhadhamisid ama ereyga afkaaga ka soo baxaya aad dhadhamisid waa adigoo leh iyo i oo isku degdeg kaga dhigay, marka waxay noqonaysaa si iyo i oo isku dartay weeyaan. marka saas daraadeed xarafkaas yare hoose ee xaraf walba ka hooseeya waa i. aan isku dayno markaa casharka xiga inagoo u baranay kan in uu yahay hoos dhig ama maanta casharkeenu wuxuu noqonayaa in aynu ugu dhawaaqno mid kastaba qaab kale. tan ugu horeysa waxaa lagu dhawaaqayaa u waa lagu dhawaaqayaa, tana waa bu tu thu ju xu fu du dhu ru zu su shu su tu du dhu cu wu fu fu qu ku lu mu nu wu hu yu. qaabkaasaa loogu dhawaaqayaa. soomaali ahaan haddii aan isku dayno oo bal ka dhigno soomaali wuxuu noqonayaa qaabkan: uduma u buduma bu tuduma tu thuduma thu juduma ju xuduma xu. waxa weeyaan carabi ahaan weeyaan uduma u buduma bu tuduma tu thuduma thu juduma ju xuduma xu khuduma khu. waa carabi ahaan. soomaaliguna wuxuu noqonayaa u alif laa goday, wuxuu noqonayaa soomaaliga marka la dhahayo alif laa goday ama u laa goday ama alif laa goday bay inta badan loo isticmaalaa. bu laa goday, tu laa goday, thu laa goday, ju laa goday, xu laa goday, khu laa goday, du laa goday, dhu laa goday, ru laa goday, zu laa goday. wax saas oo kale ah oo laa goday ay u badan tahay ayay isticmaalaan. laakiin inagu arrimahaas oo dhan isticmaali mayno maadaama aanay waxba inoo tarayn, higaadana aanay ku jirin, laakiin afkeena hooyo ay tahay. waxaan doonayaa laa goday baa inta badan loo isticmaalaa taas.
marka aynu eegno iyada oo aan ahayn marka la goday. marka mar labaad baan kusoo celinaynaa. waa u, bu, tu, thu, ju, xu, qu, du, du, ru, zu, su, shu, su, tu, ض ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ي. waxaad isku daydaa in aad sidaa u xifdidid. xifdigaagu waa inuu aada dhammaystiran yahay oo fiican yahay. saddexdaa haddaad xifdidid waa adigoo bartay carabiga higaadii, adigoo bartay intii ugu muhiimsanayd. saddexdii hadda cashar ee ugu muhiimsanaa halkaasaan kusoo idlaynay. haddii aad baratay oo aad siday tahay usoo raacday, waxa weeyaan waxaad baratay 40% xagga higaada. 40% ayaad baratay higaadi haddaad intaa keliya soo akhrisay. marka aan isku dayno marka inaynu su-aalihii qaybihii su-aalaha u galno, inagoo aan doonayn inaynu markaasi aynu waxyaabo kale ka hadalno. waan jeclaan lahaa inaan kaala hadlo in xarafkaasi aada ii sheegtid. xarafkaas haddaad eegtid waa kaa. haddii aad iigu tilmaamtid su, waa khaldan tahay. haddii aad si iigu tilmaamtidna waa khaldan tahay. haddii aad sa iigu tilmaamtidna waa khaldan tahay. saddexdaba waa ku khaldan tahay, sababtoo anigu casharkayga ama manhajkaygu saa ma ahayn. kelmaddaasi dhawaaqeedu waxay noqonaysaa saasay noqonaysaa. hal xabo ah laakiin oo keliya ayay noqonaysaa. xilmay dhawaaq yeelanaysaa. waxay dhawaaq yeelanaysaa marka ama kan aad saartid, ama kan aad saartid, ama kan oo kale aad dusha ka saartid, markaasay dhawaaq yeelanaysaa. inta kale waxay noqonaysaa bay noqonaysaa. haddaba kani muxuu yahay? kan waxa uu yahay kaa a weeyaan. okay, haddii aan kaba tirtiro oo iraahdo kanna muxuu yahay? kana wuxuu yahay i weeyaan. i haddaan hoos dhigaa u sameeyo, waxaas keliya ayaa i'da ah. okay, haddaba haddii aan dhahdo kanna muxuu yahay? kanna waxa uu yahay soomaali ahaan waxa aynu kaa u naqaano oo ah u, waa kaa keliya ah. okay, haddaba aan isku dayo in aan haddana dib u qoro aniga oo hadda fahmay waxa uu kordhiga iyo hoos dhig iyo gudninku yahay. kan muxuu yahay? kan waxaan ku tilmaamay hadduu saa yahay oo aan kaa ku daro, wuxuu noqonayaa anoo leh baan u dhahayaa. waxay soo noqonaysaa su iyo u oo aan isku dhufanayo, waxay isku noqonaysaa su iyo u oo isku lifaaqan weeyaan haddaad aada ugu fiirsatid. markaa su weeyaan. haddaba aan su-aalihii qaybihii su-aalaha u galo insha allahu tacaala. su-aasha ugu horeysa waxa weeye kaas maxaa u taqaanaa? haddii jawaabtu fu tahay waa ku saxan tahay, waxaad ka gudbi kartaa. maxaad u taqaanaa kan? haddii jawaabtu tahay qu waa saxan tahay. kan maxaad u taqaanaa? haddii jawaabtu tahay nu waa saxan tahay. kaanse maxaa u taqaanaa? haddii jawaabtu tahay wu waa ku saxan tahay. kan maxaad u taqaanaa? haddii jawaabtu tahay yu waad ku saxan tahay. halkaas ayaan kusoo afmeerayaa casharkeenii. aad iyo aad baan idin salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.